waxay ahayd arin lama filaan ku noqotay shacabka Suudaan kadib markii loo sheegay in xukunkii laga tuuray Umar Hassan al-Bashir oo 30 sano dalkaasi ka ariminayay. wasaaradda difaaca Suudaan ayaa ku dhawaaqday in dalka ay ka jiri doonto dawlad ku meel gaar ah. militariga Suudaan ayaa shaaca ka qaaday in xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi ka talinayay 30 sano ee la soo dhaafay Umar al-Bashir. guddiga sare waxay go'aansadeen inay ku dhawaaqaan in dalka uu ka jiri doono dawlad ku meel gaar ah muddo 2 sano ah. militariga ayaa si rasmi ah ula wareegaya awoodda iyagoo matalaya shacabka reer Suudaan, ayuu yiri wasiirka difaaca ee dalka Suudaan. muddo 2 sano ah ayaa waxaa xilka haynaya militariga Suudaan, isaga oo sidoo kale sheegay in al-Bashir lagu haynayo goob ammaan ah. sidoo kale wasiirka difaaca Suudaan Awad Mohamed Ahmed ayaa telefishinka qaranka dalkaasi ka sheegay in ciidamada ay xukunka ka qaadeen al-Bashir isla markaana ay xireen. لقد ظلت اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع تتابع ومنذ فترة طويلة ما يجري بمؤسسات الحكم بالدولة من سوء الإدارة وفساد النظم وغياب عدل في المعاملات وانسداد للأفق أمام كل الشعب خاصة الشباب، فزاد الفقير فقرا وزاد الغني غنى وانعدم حتى الأمل في تساوي الفرص لأبناء الشعب الواحد وقطاعاته المختلفة. وعاش أفراد تلك المنظومة الأمنية. waxaa aniga oo ah wasiirka difaaca ku dhawaaqaya in xukunka laga tuuray taliskii isla markaana madaxii taliska meel ammaan ah lagu xiray. waxa uu sidoo kale sheegay in dhammaan dawladihii heer gobol iyo heer deegaan la kala diray. al-Bashir ayaa afgambi ay taageerayaan islaamiyiinta ku qabsaday xukunka sanadkii 1989 waxaana xukunka laga tuuray kadib 4 bilood oo dibadbaxyo joogto ah ay dalkaasi ka socdeen. dibadbaxyada Suudaan ayaa bilowday 19 Diseembar 2018 markaasi oo qaar ka mid ah shacabka ay dawladda al-Bashir ku eedeeyeen in ay si xun u maareysay dhaqaalaha dalka, taasi oo sababtay sarakac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka. ugu yaraan 22 qof ayaa lagu dilay isku dhacyo dhex maray ciidamada iyo dibadbaxayaasha sida ay sheegeen kooxaha u dhaqaaqa bulshada. al-Bashir taladii waa laga qaaday, shacabkii Suudaanna waa isu soo baxeen iyaga oo dabaaldegyo muujinaya. laakiin lama oga Suudaan waxa ay ku dambeyn doonto. ma 30 sano oo kale oo xukun militari ayay gali doontaa mise dalka waxaa loo rogi doonaa nidaam shacab ah.